kulan wacan halkan waa runmaal media saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka qaybtan waxaan idin kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee guud ahaan caalamka. dowladda Ciraaq waxa ay sheegtay in ay qabatay xubno basaasiin ah oo u shaqeynaya dowladda Ukraine kuwaasi ay sheegtay in ay wadeen hawlgallo keeni kara isku dhacyo cusub oo ka dhaca gobolka Bariga Dhexe. isbuucan gudihiisa waa markii labaad oo dowladda Ukraine ay ku lug yeelanayso xiisada gobolka Bariga Dhexe. haddaba maxaa keenaya in Ukraine ay isku daydo in ay soo fargeliso ama ay ku lug yeelato xaaladda Bariga Dhexe iyadoo aan ognahay dagaalka kala dhaxeeya Ruushka iyo saameynta culus ee gudaha Ukraine ay kala kulmayso weerarada culus ee kaga imanaya dowladda Ruushka. dhinaca kale waxaa kulmay Benjamin Netanyahu iyo Donald Trump waxayna ka wada hadleen xiisada Bariga Dhexe. miyaa la filan karaa in kulankaasi kadib qorshayaal cusub Mareykanku uu la iman doono xilli ay hakad ku jiraan weeraradii uu Mareykanku ka qaadayay ama ka fulinayay ee gudaha dalka Iran. dhinaca Xuutiyiintuna waxa ay weeraro ku qaadeen xarumo shidaal oo muhiim ah oo ku yaala Sacuudiga xilli dowladda Sacuudiga aysan weli qaadin tallaabo military oo dhab ah oo ku aadan ama ay weeraro ku qaaday Xuutiyiinta. qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaad ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir haddii aad nala joogtayna muuqaalka like sar lana wadaag asxaabtaada aad baad u mahadsan tahay. haddii aynu ku bilowno dowladda Ciraaq waxa ay shaaca ka qaaday inay qabatay xubno basaasiin ah oo u shaqeynayay ama la shaqeynayay dowladda Ukraine kuwaasi oo ku lug lahaa fulinta hawlgallo sababi lahaa isku dhacyo ka dhaca gobolka Bariga Dhexe. dowladda Ciraaq ayaa markii u horeysay shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigtay kooxo la shaqeynayay sirdoonka Ukraine oo gudaha Ciraaq ka fuliyay weeraro la doonayay inay isku dhacyo dhaliyaan sida uu sheegay la taliyaha amniga dowladda Ciraaq Qaasim Al-Abuudi. waxaan xirnay tiro kooban oo kooxo ah kuwaasi oo fulinayay weeraro ka dhaca gudaha dhulka Ciraaq kuwaasi oo bartilmaameedsaday xarumo kala duwan. intii lagu guda jiray su'aalihii la weydiinayay xubnahan la qabtay waxa ay qirteen inay u shaqeynayeen dowladda Ukraine. Al-Abuudi ma uusan sheegin xarumaha la sheegay in kooxahan ay weerareen sidoo kale ma uusan cadayn in ay weeraro kala fuliyeen. Al-Abuudi ma uusan sheegin xarumaha la sheegay in kooxahan ay weerareen sidoo kale ma uusan cadayn in weeraro kale ay ka fuliyeen meelo ka baxsan Ciraaq. wuxuu tilmaamay in weerarada ka dhaca gudaha Ciraaq ay yihiin arrin adag oo u baahan baaritaano ballaaran kahor inta aysan dowladda si rasmi ah u go'aamin cidda mas'uulka ka ah ama ku eedeysan cid gaar ah oo lagu tuhunsan yahay in ay ka dambeysay. Ukraine ilaa hadda kama falcelin hadalka ka soo baxay dowladda Ciraaq balse dhaqdhaqaaqa sirdoonka Ukraine wuxuu yeelan karaa hal ujeedo oo la xiriirta in cadaadis la saaro kooxaha ay Iran taageerto si Iran loogu riixo inay taageero dheeraad ah siiso taasi oo Iran ka jeedin karta doorka ay ku leedahay Ruushka dagaalka uu ku hayo ama uu ka wado gudaha Ukraine. dowladda Iran ayaa diyaarado drone ah waxa ay ka iibisaa dowladda Ruushka kuwaasi oo inta badan loo adeegsado weerarada ay ciidamada Ruushka ka fuliyaan gudaha Ukraine. isbuucan gudihiisna waa warkii labaad oo la xiriira in Ukraine ay doonayso inay ku lug yeelato xiisada ka taagan gobolka Bariga Dhexe. dhawaan ayay ahayd markii markab laga leeyahay Iran ay Ukraine ku weerartay badda xiran ee Caspian kaasi oo dowladda Iran sheegtay inay ka jawaabi doonto. dowladda Iran ayaan weli qaadin wax tallaabo ah laakiin weerarka ay Ukraine ka fulisay baddaas xiran ee Caspian kaliya ma quseeyo Iran eese wuxuu quseeyaa Ruushka iyo afarta dal ee kale oo ay Iran ku jirto oo wadaaga baddaas xiran. wixii macluumaad ee wararkaasi ku soo kordhana barnaamijyadeena soo aadan ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa. markana dhinaca xiisada cusub ee u dhaxaysa Xuutiyiinta iyo waliba Sacuudi Carabiya kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafayba isweydaarsanayay duqeymo culus. weerarada u dhaxeeya Xuutiyiinta iyo Sacuudiga ayaa mar kale sii xoogeystay iyada oo la beegsaday kaabayaasha tamarta ee boqortooyada Sacuudiga sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay. Xuutiyiinta oo ay taageerto Iran ayaa ku dhawaaqay inay weeraro diyaarado aan duuliye lahayn ku qaaday xarumo muhiim ah oo warshadaha shidaalka Sacuudiga oo ay ku jirto xarunta sifaynta shidaalka ee Al-Abiq. sawirro dayax gacmeed ayaa muujiyay qiiq iyo dab ka kacay xarunta kuwaasi oo tilmaamaya in qaybo ka mid ah xarunta ay waxyeello gaartay. dowladda Sacuudiga ayaa weerarka ku eedeysay Xuutiyiinta iyo maleeshiyad ay sheegtay inay Iran taageerto oo ka howlgala Ciraaq iyadoo sheegtay in qaar ka mid ah diyaaradaha la soo riday balse qaar kale ay gaareen bartilmaameedyadooda. Al-Abiq waa xarunta ugu weyn ee lagu farsameeyo shidaalka cayriin ee shirkadda Aramco waxaana loo arkaa halbowlaha dhoofinta shidaalka Sacuudiga. weerar kasta oo lagu qaado xaruntan wuxuu saameyn ku yeelan karaa wax soo saarka shidaalka iyo qiimaha saliidda caalamka. dhinaca kale Sacuudiga ayaa qaaday duqeymo uu ku bartilmaameedsaday fariisimo ay Xuutiyiintu ku leeyihiin gudaha Yemen gaar ahaan gobolka Xudayda iyo Marib.
taasoo muujinaysa in xabad joojintii muddada dheer jirtay ay sii wiiqmayso. xiisadda ayaa kor u qaadaysa cabsida laga qabo in colaaddu ku fido guud ahaan bariga dhexe, iyadoo halis gelin karta ammaanka tamarta iyo maraakiibta ganacsiga ee gobolka. dhinaca kale, kooxaha xuutiyiinta ayaa dhowaan soo bandhigay muuqaal muujinaya diyaarad daroon ah oo dhulka kusoo dhacday, taasi oo qiiqaysa, waxayna sheegeen in diyaaraddaasi ay soo rideen. diyaaradda la soo riday ayaa la sheegay inay tahay diyaarad daroon ah oo laga leeyahay dalka Sacuudi Carabiya, taasi oo ay asal ahaan farsamaysay dowladda waddanka Turkiga. markana haddii aynu eegno marinka Gaza oo sanadihii la soo dhaafay ay si weyn u duqeynaysay Israa'iil, ayaa haatan la sheegaya in la geynayo ciidamo caalami ah. marinka Gaza waxaa ka socda isbeddello militari iyo kuwo siyaasadeed oo muhiim ah, iyadoo Israa'iil ay sii wado duqeymaha iyo howlgallada dhulka, isla markaana ay soo baxayaan qorshayaal lagu geynayo ciidamo caalami ah. golaha ammaanka ee Israa'iil ayaa ansixiyay qorshaha ogolaanaya in ciidamo caalami ah lagu geeyo marinka Gaza. ciidankan ayaa la sheegay in uu ka koobnaan doono ku dhowaad 200 askari, iyadoo dalal saaxiib la ah Israa'iil ay qayb ka noqon karaan, balse waqtiga rasmiga ah ee la geynayo weli lama shaacin. dhanka kale, ciidamada Israa'iil ayaa sii wada weerarada cirka ah iyo kuwa dhulka ee ka socda waqooyiga, bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza. duqeymihii ugu dambeeyay ayaa lagu beegsaday goobo ay Israa'iil sheegtay in ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Xamaas iyo kaabayaashooda militari, halka wararka ka imanaya Gaza ay sheegayaan in weeraradaasi ay sidoo kale sababeen dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah. weerarada ay Israa'iil ka geysanayso marinka Gaza ayaana ku soo aadaya iyadoo ay jirto xabad joojin guud oo u dhaxaysa dhinacyada Xamaas iyo Israa'iil. tan iyo markii la gaaray heshiisyo xabad joojin ah, Israa'iil ayaa duqeymo waxa ay ka fulisay marinka Gaza. ciidamada Israa'iil ayaana isku sii baahinaya gudaha marinka Gaza. haddii aynu intaa kaga nimaano xaaladda murugsan ee magaalada Gaza, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maalinkiisii koowaad waxa uu ku sugan yahay dalka Mareykanka, halkaasi uu kulamo kula yeelanayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. kulamada Benjamin Netanyahu iyo Donald Trump ayaa la aaminsan yahay in diiradda lagu saarayo xaaladda guud ee bariga dhexe iyo dagaalka Iran. safarka Benjamin Netanyahu ayaana imanaya xilli ay uu Mareykanku hakadgeliyay weeraradii uu ka fulinayay gudaha Iran. Donald Trump ayaana sheegay in weerarada uu u joojiyay sabab la xiriirta in fursad la siiyo wada hadallada lagu soo afjari karo xiisadda u dhaxaysa labada dhinac. falanqeeyaasha ayaase aaminsan in kulanka Benjamin Netanyahu iyo Donald Trump ee Mareykanka uu sabab u yahay qorshayaal cusub oo la doonayo in wax ka bedel lagu sameeyo istiraatiijiyadii lagu wajihi lahaa Iran. dhinacyo badan ayaana aaminsan in haatan Mareykanka iyo Israa'iil ay qorsheynayaan in ay weeraro cusub ku qaadaan Iran. guud ahaan saaxiibayaal, barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka waa naga intaa. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad nala joogtayna aad baad u mahadsan tahay. like saar muuqaalka lana wadaag asxaabtaada.